gabadhan biitse dalbanaysa kadib waa kana waxay bilaabaysaa inay biitsadii albaabka ka cunto kii biitsada keenana waa kana uu yaaban yahay kadib ninkeeda gurigii ka soo baxay wuxuu ku dhahaa qofkan yow noo ahay iyadana waxay ku dhahaysaa qofna ma ahin ninkeeda intoo soo socday waxay sii isticmaalay bahashan sida biitsada looga carfin waa kana marka ninkan u dhiibay waxay dhahaysaa ii qari ninkeeda markuu imaadana wuxuu dhahaa biitsadan maxay noo ahayd kaaloo dhahaa waa kaashkii biitsadan inaa cuntee iyadana waa tana markay u imaatay waxay dhahaysaa biitsadan annaga ma lihin ee waa nagula soo qalday isagana wuxuu dhahaa waa kuu sheegay waxa keliyaha kuu ogolahay waa qajaar iyo biyo inaa cabto haddana waa kaashkii u dhaha igu soo neefsa biitsada inaa cuntay iyadana waa tana waxay bilaabaysaa inay ku soo neefsato asagana wuxuu dhahaa sug wax yar waa kuu soo laabanaa midkaana la soo hadlaaye waa kana marka ninkii markuu u imaado wuxuu ku dhahaa maxaa meeshan ka samaynaysaa isagana wuxuu dhahaa guryaha isku qalday marka dariskiina inuu biitsadan leeyahay u maleynaa waa u geynaa isagana wuxuu dhahaa sidaas hadday tahay waa inaa iska baxdaa midkaana waa kana wuu shakiyey inuu baxa mar rabo laakiinse ugu dambeyn wuu iska baxaa ninkaana markuu baxa midkan wuu soo jeesaa gabadhii oo la hadlaa wuxuu ku dhahaa waa kuugu soo celinaa mar kale waxa keliya kuu ogola waxa waaye qajaar iyo biyo inaa cabto iyaga oo wada sheekaysanaya waxaa soo laabanaa ninkii biitsada keenay kadib wuxuu dhahaa albaabka iga furmi waaye midkaana waa kana teleefankiisa albaabka uga furaa ninkan biitsoolaha ahna markii uu baxo wuxuu ogaanaa inuu ninkan gabadha qabo isagana sidoo kale inuu baxayo waa kana marka wuxuu go'aan ku gaaraa gabadhan inuu caawiyo ninkii gabadha qabayna waa kana gaarigiisa soo qaadanaa gurigii uu ka soo baxaa midkaana waa kana meeshan geedageedaha ku dhuumanaa wuxuuna arkaa inuu albaabkii ka xirmi rabo waa kana marka intuu soo ordo wuxuu ka faa'iideysanaa albaabka intuusan xirmin gabadhiina waa tana qanjaarkeeda iyo biyaheeda la iska caboosaa robotkan uu ninkeeda u sii diyaariyana wuxuu ku dhahaa waa ina aalimiiteedaa sida ay u sii caatoowdid adigana waxaa ogaanaya ninkan gabadhan sidaan wuxuu ugu galaya inay caatooduu rabaa xoogaa kadib waxaa soo laabanaya ninkii biitsada keenaaya iyadana waa tana albaabkii ka furaya waxayna ku dhaheen meeshaan maxaa ka samaynaya isagana wuxuu dhahaa waxaa ogaaday inay baahi ku hayso laakiinse ninkaas uu cuntada kuu diidaayo sidaas darteed cuntadaana ku keeno uu dhahaa waa inaa cuntaa iyadana waa tana markay cunadan aragto aadi u farxee muuqaalkana laga saare cunadiina inay cuntay bilaabaysaa ninkan wuxuu dhahaa waa sii baxa laakiinse way ka diidaysaa waxay dhahay gudaha soo galbiyo waa inaa cabtaay kadib isagana wuxuu ku dhahaa ninkan sidaan kuu galaya maxaa weli ula sii joogtaa iyaga oo wada sheekaysanaya gabadhan waxaa soo wacaya ninkeeda iyadana waa tana markay aragto aadi u welweli waa tana marka ninkan taleefkii ka qabanaya midkan kaloo la joogana waxay dhahaysaa iga aamus ninkeedana caadi uma soo wacaya kaamiradu ka soo wacaa wuxuuna ku dhahaa maxaa adiga hadda samaynaysaa iyadana waxay dhahaysaa wax kale ma samaynayo biyihii cabaa qanjaarkiina waa cunaa kadib ninkan wuxuu ku dhahaa waxaas daanka kaaga yaala maxaa waaye iyadana waxay dhahaysaa waxaan wax kale maahan ee roojeysta waaye isagana wuxuu dhahaa roojeysta le may ii ahayd haddana wuxuu dhahaa waa ina ogaadaa culeyskaaga waxaa soo qaadataa ku dhahaa miisaanka laisku cabiro kadib miisaanka markaa korto natiijada waa inay tustaa ku dhahaa qaybtii koowaad waxay noo maraysay ninkaanoo gabadhii ku dhahayo haddana waxaa la gaaray xilligii aan culeyskaaga ogaa lahay miisaanka laisku miisaama soo qaado kadib markii aad korto culeyskaaga inaa arkaan raba natiijadana waa kaa sugaha u dhaha waa inaad dhaqsataa iyadana waa tana waxay dhehe baxarkii adduunka ku jira ninkan wuxuu ku dhaha waraxas balbalay ma leheba caadi waa been ma u sheegtid iyadana waxay ku dhehe been muu sheegi karin miisaanka markaa koro si toosay natiijada asaga taleefankiisa ugu soo dhacaysaa ay dhehaysaa ee hadda waxaa ii sheegtaa cunada cun culeyskeeda meeqa waaye isagana wuxuu ku dhahaa haddaa fiiriyo cuntada cuntay horta wixii meesha yaallo dhan waa ku yacday laakiin ha ka welwelin oo dhahaa waxaan aniga qorshe keenayo ee waxaa ii keentaa u dhaha miisaanka laisku miisaamay aawey waa kana marka bahashii uu cunada ku wado biyo ku shubaa miisaanku saaraa xariifkii robadka ahi wariifkaayna waa kana wuxuu dhahaa marka bahalka miisaankiisa 100 kiilo waaye iyadana waxay dhahaysaa aniga xitaa 100 kiilo ahay wuxuu ku dhahaa marka sidaas haday tahay miisaanka markaa saarno waxaa fiirinaynaa intuu noqdo waa kana markii uu miisaankii saaro wuxuu noqonaa 98 kiilo gabadhaana waa tana aadi u farxaysaa kiina waa kana maasiidka usoo dhacaa 98 kiilo ahay kadib wuxuu dhahaa midaan maanta keliya mee 2 kiilo iska riday aniga i qiyamaysaa u maleynaa kana marka wuxuu fiirinaa laabtoobkiisa wuxuuna arkaa inuu ninkii biisoolahay gabadhii la joogo waxaana robodkii wariifka ayaa duubayay ninkii biisoolahayna waa kana gabadhii markii uu caawiye waa soo baxa ninkan gabadha qabana wuxuu dhahaa midkan biisoolaha maanta sida uu bixi lahaa ayaa la iska rabaa taleefankiisa uu soo qaadanaa alarmiyu ku shidaa albaabada dhanna waa kuwaana dhammaantood way isxiraayaan waa kuwaana marka waxay arkayaan inuu albaabadii dhan isxireen ninkanna wuu soo baxa wuxuu soo aadaa dhinaca gurigiisa adigana muuqaalka sheer iyo leega isugu dare kiina waa kana gurigiiu imaanaa wuxuu bilaabaa inuu raadiyo gabadhiiyo ninkii gabadhiiu la hadlaa wuxuu ku dhahaa khiyaanadan inaad samaynayso way kaa soo uraysay waa kana marka musqushii u galaa wuxuuna ku arkaa inay bahashii miisaankii saaran tahay
ninkii biisoolaha ayaa musqusha ku jiray waa kana shukumaankaanoo madaxa uga duuduuba taleefankiisa inta ka soo qaato albaabka dusha uga soo xiraane kana markii uu taleefka gacanta ku dhigay albaabkii iska furaa waa baxa ugu dambeena waa kana boolis oo keenaa ninkaana waa la xiraa ninkaana taleefankii booliskii ku wareejinaa adigana muuqaalka leeg saare naagtan iyadoo jiifto nimankan intay u imaadaanay wejiga uga falfalaadayaan kadib waatana iyadana way soo kaceen midkaana ninkeeda waaye wuxuu ku dhahaa isdeji sabraysa ku hayaaye iyadana waxay dhahay sabrayska ka sheekeynaysa maxaa waaye midkaan iyo noo ahay isagana wuxuu dhahaa ninkan iska baro waa dhakhtarka qalliinka ee ugu fiican adduunka waxay dhahay marka dhakhtarka qalliinka ka sheekeynaysid maxaa waaye meeshaana muxuu ka sameynaa isagana wuxuu dhahaa aniga qalliina raba inaan kugu sameeyo si aad dhalinyaro u noqoto iyadana waatana weydiidaysaa isagana wuxuu ku dhahaa maxaa u diiday caadi iska dhig ani waxaa rabaa weji qurux badan inaan kugu sameeyo waxay dhahay sida aniga ahay waa ku qanacsanahay waatana marka intay soo baxday wixii u mariyeen iska tirtire ninkaana ma ka harayo waa kana intuu ka dab imaado sawirkan tusinaa wuxuu ku dhahaa sidaana u ekaanay haddii qalliinka lagugu sameeyo sidoo kale ninkii dhakhtarka ahay intuu u imaado sawirkii tusinaa wuxuuna ku dhahaa sidaan waxaa ku noqonaya muddo hal bil gudaheeda iyadana ugu dambeyn way ku qancinayaan wayna ogolaane sawirkii la tusayna way ku qancee ninka dhakhtarkaana wuxuu dhahaa biriba waa bilaabaynaa qalliinka nimankaana markii ay baxaan gabadhan waatana way soo tegay waxay imaaneen maqaayad gurigooda u dhowaay gabadhan kalena waxay u keenay shaaxi ay ka dalbatay waxay arkeen marka gabadhan shaaxa u keenayso iyo sawirkii la tusaayay inay isku eg yihiin waatana marka sawirkii soo bixinee waxayna isku fiirinee sawirkii iyo gabadhii wayna isku ekaanayaan iyada oo yaabane waxay u wacay gabadhii shaaxa u keenaysay iyadana waatana way u imaanee kadib waxay ku dhaheen maxaa kaa caawiyaa waxay dhahay caawimaad ma u baahni ee waxaa rabaa inaan su'aal ku weydiiyo iyadana waxay dhahay su'aal waa i weydii kartaa waa kaaga jawaabaye waxay dhahaysaa marka Bedrick John ma taqaanaa midaana waatana intay xanaaqday waxay dhahay midkaas saaxiibo hore ahaa jirnay intaas kaliya ma u ekeenaysa ninkaas intay qabatay kal iyo laab u caynaysaa midaan kalena waatana indho kaliya ka soo haray kadib waxay ku dhahay waa kaa raali gelinaa maadaama kaa xanaajiyey gabadhaana waxay dhahaysaa laakiinse su'aashaas adiga maxay aniga ii weydiisay midaana waxay dhahaysaa su'aashaas wax kale ma ku weydiin laakiinse asaga Bedrick ninkayga waaye isaga anigana intaas kaliya ha ku weydiiyey waatana marka arrintii 2 bilooda ka soo wareegatay adigana muuqaalka leeg saartay gabadhiina waatana kadib wejiga markuu 2 bilood u xirnaay waa laga furaa gabadha wejiga markii laga furo ninkeeda wuxuu dhahaa hadda waxay u ekaatay gabadha rabay iyadana waatana waxay dhahaysaa gabadha rabtay inaa u ekaadayay noo ahayd qaybtii koowaad waxay noo maraysay gabadhaan oo dhehayso naagta rabta inaa u ekaadayay noo ahayd isagana wuu ismashquulinaa miyaaradaanu intuu u soo qabto wuxuu dhahaa isfiir sidaa u ekaatay ninkii dhakhtarkaayna wuxuu dhahaa waa ni salaama waa sii baxa habeenkii markii la gaaray gabadhii waatana kaamirey soo qaadanee isagana intuu qoslo wuxuu dhahaa kaamirada maxaa u soo qaadatay iyadana waxay dhahaysaa kaamirada waa iska jeclahay waatana marka iyagoo wada sheekaysanayay kaamira ka duubaysaa intaas keliya ma u ekeenaysa waraaqada inta soo qabatay ku tuuree waxay dhahay waraaqadahan saxiix isagana waa kana isagoo yaabana wuxuu dhahaa waraaqadahan waraaqadihii furriinka waaye laakiinse maxaa sidaan u sameynaya iyadana waatana intay miimarigii kaamirada ka soo bixday waxay dhahay sababtoo ah xaaskaaga qiyaantay isagana wuxuu dhahaa xaaska ka sheekeynaysiya noo ahayd kadib ninkan xaaskiisii saxdaheeda luuqan ka soo baxayso waxay dhahay shaqo fiicanaa qabatay isagana waa kana indho keliya ka soo haraayo wuxuu dhahaa marka taas waxay ka dhigan tahay qoftaan waa qofteydii hore iyadana waxay dhahaysaa haa aniga waaye adigana xaaskaaga waa aqoonsan weeday sababtoo ah naftaada lee ka fikirtaa isagana intuu soo istaago wuxuu dhahaa qof yahay sidaa u malaynaysid maahan iyadana waxay dhahaysaa laakiin sidaa u malaynaya dhacday waxaa rabtay inaa extaada u ekaado kadib waxaa ku fikirtay inaa aniga muuqaalkayga bedesho adiga bis waaye dhahaysaa waa soo waalatay inaad dhakhtar u tagtaa u baahan tahay midaana waatana waxay dhahaysaa waqtigii ciqaabtaada la gaaray isagana waa kana intuu ku qoslo wuxuu dhahaa ciqaab ma ay dhahdeen kadib markaa muuqaalka leeg saartay ninkan intuu waraaqada soo qaato wuxuu dhahaa idinka waxaa tihiin shactiroolayaal anigana shactirada waa iska jeclow dhaha haddana waxaan waraaqadaha saxiixaya ma lehe iga qabsada anigana aqliya isticmaala dhakhtarkii ila shaqaynaya waxaan iga xalinayo dhaha midaana waxay dhahay dhakhtarka maa dhahday gabadhii intuu soo jeesatay waxay dhahay dhakhtarka qaraabo soo ma tihiin war ninkaas dhakhtarka ah ku tashanay ku dhahaysaa annaga dhinaceenna waaye waxaan inaan samaysana markhaati u ka noqonaa maxkamadda kugu caddeynaa isagana wuxuu dhahaa dhakhtarka hadda inuu magaalka ka baxaa maqlay caddeyn xaggaa ka keenay midaana miimarigii intay soo bixisay waxay dhahay sidaas haday tahay kanaan anfacayo wuxuu dhahaa marka arrintaanoo dhan maxay iigu samaynaysiin iyadana waxay ku dhahaysaa waxaanoo dhan in lagugu sameeyo waa u qalantaa midaana dhinaca caayaday ku fiicantaa waxay dhahaysaa dooli biyo ku dhex dhaco oo eygeenaga keen waa kana markii ayagii baxeen midaana soo laabanaysa waxay ku dhahaysaa waxaa kuu sheega 3 saacadood a haysataa alaabtaada dhan waa inaad gurigayga ugu aroorsataa
ninkan maskiinka isagoo meeshaan iska fadhiya waxa uu imaanaa ninkan kale kadib ninkan maskiinka lacagtii uu haysto ka qaadanaa boorsidiisa uu ku ridanaa waa kana marka meeshii isaga soo tagaa ninkii maskiinkaana waa kana ninkii lacagta ka qaato ka soo daba ordaa kiina sida uu soo socdo waa kana hotelkan soo galaa ninkan maskiinkaana waa kana ma ka yeelayo hotelkii uu ka soo daba galaa laakiin ninkan waardiyaha qabanaya kadib wuxuu ku dhahaa meeshaan ma degantaa isagana ma yuu dhahaa meeshaan isaga tago ku dhahaa marka ninkan maskiinkaana wuxuu dhahaa ninkaas u jeedida lacag iga soo xaday kan waardiyana wuxuu ku dhahaa waa kaftamuusa u maleynaa meeshaan isaga tag iyaga oo wada doodaya waxa arkay gabadhan kadib waa kana uu imaanay waxay dhahay aniga xalinayo adiga iska bax ninkii waardiyaha markuu baxa ninkii maskiinka waxay ku dhahay ninkaas inuu lacag ka soo xaday ma iga hubtaa isagana wuxuu dhahay yaami ninkaas lacagteedii iga soo xaday waxay ku dhahay marka sidaas deeyta sida boorsidiisa loo soo baari lahay aniga aqaano adigana meeshaas ii sii fadhiiso aniga ku soo laabanayo waa kana markii uu meeshii soo fadhiisto waxa arkay xariifkan Shiineeska oo journalka akhrisanayo kadib uu salaama laakiin midkan shaaxiisa uu cabsanaa in looga yaaco waa kana marka uu jiidana gabadhiina waa tan ninkii lacagta soo xaday u tagay kadib waxay ku dhisay lacagtan ma bedeli kartaa sarifaa rabaaye isagana waa kana ninka maskiinka lacagtii uu ka soo xado soo bixina wuxuu ku dhahaa waa tan sarifkana ma u baahni ee adiga qaado ku dhahaa kadib waxay ku dhahay lacagtan xaga ka keenta jeexjeexan isagana lacagtii intuu ka dafo wuxuu ku dhahaa midaas shaqadaada maahan kadib waxay ku dhahay lacagtan waxay u egtaa mid la soo xaday isagana wuxuu ku dhahaa boolis miyaa tahay idan wuxuu dhahay boolis miyihi laakiin booliska waa wici karaa waaba ka xishoonay dhahaysaa inaan la hadlayo nin dadka masaakiinada darbi jiifida lacagta ka xadayo isagana wuxuu dhahaa ninka hotelkan leh inaan la kulmaa rabaa kadib wuxuu ku dhahay inuu waqti ku hayo miyaa u malaysaa wuxuu dhahaa marka wiilkiisa waqti u sameey karaa haday sidaas tahay kadib gabadhan waxay ogaanaysaa ninkii ee hadda la hadlaysay inuu yahay ninka hotelka iskale wiilkiisa adigana inaa muuqaalka leeg saarto ma hilmaamaysid ninkii odagahana waa kana wuxuu dhahaa wiilkayga muxuu sameeyey iyadana waxay dhahaysaa wiilkaaga nin maskiin oo lacag ka soo xaday odaygana wuxuu dhahaa shaqadaas ma bilowday inaad dadka masaakiinta lacagta ka soo xado war hadda waa baxaysaa dadka martideen ahna waa soo raali gelinaysaa oo ku dhahaa isagana wuxuu dhahaa war midkaas marti maahan derbi chief waaye anigana $2 ka soo qaato ku dhahaa odaygana derbi chief markii oo maqlay wuxuu dhahaa derbi chief ma ay dhahdeen waa kana marka uu ku qoslaa wiilkiisana uu ku qoslaa asigana wuxuu dhahaa marka waxaan marka ii soo sheegaysid waxa ii sheegtay ma weysay iyadana waxay dhahaysaa ee wiilkaaga nin masaakiin oo lacagtiisa ka soo dhacay odaygana wuxuu dhahaa midaan hotelka dhexdiisa maysa ka dhicin soo maahan wuxuu dhahaa wax kasta oo dhacay intaas shaqadaada ku dhex jirto weliba hotelka banaankiisa taas shaqadaada ma ahayn oo dhahaa waa inaad ka dhamaataa ninkaas derbi chiefkana hadda waa inaad banaanka iga bixisaa oo ku dhahaa iyadana waa tan iyadoo ku qanacsaneen haye iska dhahe kadib lacaga inta soo bixisay jeexday ninkii miskiinka u geynay waxay dhahay lacagtaada waa tan qaado wixii kugu dhacayna waa ka raali gelinayna ku dhahe isagana waa kana intuu lacagtii soo celiyo wuxuu dhahaa lacagtiidii tan maahan sababtoo ah dhinac qaldan ay ka jeexan tahay xoogaa kadib labadan gabdhooda imaanayo kii lacagta soo xadayna wuxuu taagan yahay misraacna cabitaan ma soo cabnaa iyagana waa kuwana waxay dhahayaan nin masaakiin oo derbi chief lacag laga soo xaday cabitaan ma ku cabno kadib intay ku qosqoslaan ay ka tagayaan xariifkan ciil dartiisa oo qarxi rabaa